garbaharey waxaa taa 16 kursi oo halaanka hadeer xal loo leeyahay kadib markii 17 Sebtembar lagu heshiiyay in magaalada garbaharey lagu qabto 16 kursi habeen dhaweyta waxaa hadal ka soo baxay Axmed Safiina oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal sheegay Axmed Safiina waa sida asagoo hadalka uu dhigay in aan loo joojin doonin gobolka Gada lagana socon doono lana soo dooran doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadibna asagoo uu xildhibaan u diri doono gobolkaas lagana soo dooran doono xildhibaanadaas hase yeeshee mar uu bixiyay raaligelin ayuu wuxuu hadalkaasi raaligelin ka ahaa sidaa darteedna aysan reer Gada aysan meel kale u qaadin ayaguna aysan moodin inay cadaawad kala dhaxayso Axmed Safiina wuxuu sheegay sidoo kale inuu ku bogaadinayay dhinacyada isku haysta gobolka Gada oo ay ka dhaqaaqi lahayd oo horeyso dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo midda maamul goboleedka Jubbaland waxa uu sheegay inay caqabad kala noqon karto ayna sumcad xumo ku tahay ayagoo goboladii kale ka socota doorashadu inaysan garbaharey ka socon sidaa darteed wuxuu sheegay in la isu tanaasulo lana soo dhameystiro kuraasta taala magaalada garbaharey ee gobolka Gada waxa uu naxaw bixiyay raaligelin buuxda gabi ahaanba bulshada reer Gada oo moodeysay inuu ka raacay Axmed Madoobe oo si xun isu hayaan bulshada ku nool halkaasi reer Gada waxay Axmed Madoobe isu hayaan si ba'an markaasna ma ogola in kuraastooda uu lug ku yeesho ama sabab u qabtaba ama saameyn Axmed Madoobe ku yeesho sidaa darteed cid kastoo ku tuhmaan waxay u arkaan cadowgooda Axmed Safiina